يا لا يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا لا barakaatu daawadayaal kusoo dhawaada barnaamijkii waa kuma barnaamijka ama barnaamij taxane ah ku casuumna culimada Soomaaliyeed sida taariikhdoodii u barano barnaamijkana waxa ku casuumnay xalqadan Sheekh Saciid Raage xalqadan waa xalqadii 11aad sheekha kusoo dhaweynaya kelmadiisa furfurashada falyatafadal mashkuuran majura ومحسنتين إلهي سبحانه وتعالى إذن كابال مريو سيلعي يا جماعة كحرنبا وأنا محسنتين مركان أيضا مرتي قاضي وأنقلي نمركي كوبي توبانات ونمر عن شعله شيخنا هذا نو شيكتي مقعدي سدحان يماشا كو دلتي أنا مقعدي واحد هذا سعيد علم الراقي مين يلا فيها حولك أنا سعيد علم الراقي عالي فارح عبدي بي وانا قانا موقتي ضدك وحو هاستاني أنا الصومالي ده يعني لقانوه دينا كان يرفقنا وحن كل شيء تولي يرو الله إلى هذا إن تولي كتالا الصوماليا يعني كل شيء هو قعون على الله إلى هذا إن وتولي إثيوبيا كترسن أما حدود كده أي قيب سودان إثيوبيا ما شاء الله شيخنا بيئة كسو كرتي سامنتي كلها أدانو شيء كرتي وwaxaan ku soo koray in biya islaamiya waxay ahayd Sacuudigana Soomaaliya ama yar baan ka imi marka in biyadan ku koray waxay noqotay tii Sacuudigana alxamdulillah min al-ula waxaan lagu bilaabay diibana laga bilaabay waxaan dhigan jiray waxa la yiraahdo in fiqiga mawaatan dhigan jiray ka talabo waxaan jiray fiqh iyo waxa la yiraahdo hadith iyo waxa la yiraahdo mutalaca iyo waxa la yiraahdo of course quraanka marka mawaad asaasiye waxay ahayd iskuulka mawaad islaamiya طبعا waxa ku jiray xisaabaha iyo mas'alada kale laakiin halkaas aan ku soo koray طبعا in markan anigu yara waxay waqti uu Sheikh bin Baz ibn Uthaymin uu noola dacwada manhajka in ahli sunnah aad iyo aad baa dhirin gelin jiray labada sheekh marka ay noolaayeen in dacwadu way ka duwaneed waqtigan xaadirka ah labada sheekh waxaan shuyuukh in dacwada gacmaha kula jira oo ardaydooda iyo wixii ku xidhan iyaguna in dad aad iyo aad talabat ilmi u jecel oo xalaqadaha talabat ilmi iyagu iman jiray marka wujuudkoodii jiritaanka jireen wuxuu ku sameeyay taasiir aad u weyn ku sameeyay community-gan deganeen iyo Sacuudiga waxa inoo dhawaa marka annaka in sheekh la yiraahdo Maxamed Saalix al-Munajjid guul masaajidkiisu Masjid Umar bin Abdul Aziz wuxuu ahaa xaafadayada marka in sheekh wuxuu ahaa la ixtiraamo oo in aad iyo aad looga dambeeyo marka deemaan runtii qiimaha ma fahmaynin oo sheekhu lahaa marka waa wan yareerana kubad baan oo dareed kubadan ciyaar iyo team aanu shajacin iyo waxa laakiin waxay dadkii aan xaafadooda ku soo koray شيخنا أداك قدوبنا بيئدي برشاد علمك أنت كقرما أياد بلاودي يوجدك وراضي برشاد علمك إن كعلمي هان أنا ومركي هرد وحن ونلقو أبابيو أو سعودي قد أصلي وابا الدين وطن فقهي يا عقيدة دي يا سيرة دي يا حديث كي وحول بنرد لي أساسيات كي مركي وقتك oo in tafsiirti ba ku jirto quraanki ba ku jiro mutaalacadi ba ku jirto xadiidki ba ku jiro iyo wax walba ku jirto in waan ku fiicna mawaad islaamiyaad baan ugu fiicna waan jeclaa waan ku raaxaysan jiray inaan xafido mutuuka waxa in laakiin in Sacuudiga runtii xalaqaad fara badan maan ku xidhnayn waan yaryareen aad baan u yaryareen inaanu masaajidka tagno oo xalaqadan dhageysano jumcaha dhageysano duruus dhageysano mooyaan marmar iyo dhif لكن حلقين الشيخ صالح المنجد كمان حدين سي إن حديد أدق إن وحيقول مركي وحد عضي يعني ملايدكم ما يدق لنا 1994 كي 93 كي مالها أيا وحنو إن حافظ بانو الدقنين حافظي أنو الدقنين إن وحلو بهذا إن وداد سكد برده warkaan waxa ku jiray dawaaska high school baan high school ku jiray in waxa dhacday marka in uu kalifto inaanu sameysano mawlac yar ka qatan oo kala kareysanay wadaad baa loo baahay wadaadii dhaamay marka muu jiro dan af Carabiga inuu garanayay kitaab soo xadeena waan haystay
kitaab yaroo kuwii asliga ahay qadiimka ma garanaysaa warqadaha yalowga asfarka ahaan jiray ee dahabiga ahaa كتاب مركو حلو رجلي بستان العارفين ويليه تنبيه الغافلين إمام السمرقندي بالقري وكتاب قديمة مركا حتى مصاحف ربنا من هاي سنين مذاهب كمان كلا قرنين وحوم من كلا دانا كبا عرورين إن حافظ إذا رنتي عدنا هكتا أو هكاك سنة ميتشرين حافظ مركا عد أكتف ويسكد برد ميتشرين مركا وحن بلابنا نو ثوانيه بالضبط عند أنق أو حخرسو أو حبرو waxaan garanaya xitaa inaan anoo kitaabkan akhriya inaan maktabada mar aan tagaanay okay dadka maxaad u dhigtaa aan kitaab yaro ila dhado fiqh al-maliki aan soo qaatay mana fahamsan wax fiqh al-maliki uu yahay mustalahaadkii iyo wixii waan fahmaa kasan iska dhigay kiyara baan ku noqday Samarqandi kitaabkaasna kitaab yaro ah al-wa'd waxan waa xaraani waxan waa xalaali waxyaabahaas halkaas aanu ku runtii aan ku wadnay arinta waxaan dhacday markii aanu waxaan galay jamaacada tabliiq wadad wanaagsan bay ahaayeen oo aad noo soo dhaweeyay dacwada weynana wadwadeen laakiin cilmi badan kamaanu faa'iidaysan as a matter of fact waxaan isku khilaafnay waanu wariyay nabadgelyo waxay ahayd cilmigii ayaa aad noogu yaraa waxay noqotay inaan anigu aan noqdo inaan ku dadaalo inaan anigu cilmi mara kitaab soo qaato mustalax soo qaato mar soo iibsado Fath al-Bari mar kitaab kale soo iibsado في الأخير أنا عايز كوضع حلقة دي إن الشيخ مصطفى هارون وحبها مؤتمر كي يوهرية عن كقيب قلو لأن يرى أكتف والنشيط أيان هايو وحن كود الدعوة اللي يرى أن أدوش على باسكت بول كي وحا لكن وحن لي كرتشري ميتشري وهن قراني يقول له القرآن كي وانا أخري لكن ده التجويد كمان أخري تشري كتبتي وان عربي وان قراني لكن ده مصطلحات كيو وحنا يستعمالي ما قرانيو حديثكي لقى يابا إنان سقرد أفهمه وهكذا مركز وحلقة وانسكب فرسين جري الشيخ غير هذا مركز صبغة الله الرسول 10 القراءات كهية أو إن كردية وعراقية ونرجع لي مقالة أيام غوص فريسونو تجويد كان نور اللي بيشري وحنا العلم نقول سباروتي وحد عليه مركز إن وحلق لي مسألة دي إن ولا دعاء دي بس خلاف إن أبو الحسن المغربي إن شيخ الربيع المدخلي ورجع بس كل عاي إن فتنة دي كهريس حرب الخليج هايد إن سلمان عودة إن الله كانوا رجل السعودي الشيخ بن باز رجل السعودي كواسنا وحل طريق مجال مكان طريقنا نشوفها لا والله كلا شبك وحلا كلا شبك قلا دونس إن أيوة سبور قرنية إن سلمان عودي سفر الحوالي جروب كيسة إن مركز قرادس هذه قروا واحد كسر شيء إن كان رأسا ابن عثيمين بن باز إن قرادة إنه واحد رأسا ابن عثيمين بن باز الباني واحد كسر شيء إن قرادة أنا مركز واحد يقول aborted confusion وقرادة إنه صحيح بهاي لكن رألي كم مركز علماء كان لقوا عايو قرادة إنه صحيح بهاي مركز اللي يرى العينة ده إن رألي كمي marka waxay noqotay in marka qoladan la joogana difaaci culimada aan difaaco marka qoladan culimada joogana dhalinyarada aan difaaco war maxaa ku haysataan wari culimada iska daay labadii qolobani marka waxay arkaan in anugu ka soo horjeedo marka waxaan waniyo barinta diinta oo kana waxa adiga annaka sax kana annaka sax confusion marka ay geliyeen in marka waxaan dhigan jiray waxaan xafidi jiray kitaabkan la yiraahdo in taysir mustalah alhadith li Abdurrahman Tahan iyo kitaabka la Bulugh al-Maram ayaa markaa u fadhiisana masaajidana xafidna iyo in kitaab loo jiray kitaabka loo dhigi jiro tajwiidka hadu waxyaabaha in iska xafidi jir laakiin marxalada say noqotay marxalad aan qaraar aan gaarado waniyo inta cid wax ka dhiganay horta adigu diinta si wanaagsan u soo faham marka in waxaan apply garay jaamacadda Imam Ahmed bin Saud oo ayagu yiri war jaamacad baan ku leenahay in Virginia noo kaale halkaas markaan ka bilaabay halkaas aan kula kulmay culimadii faraha badnay ee wax ka dhiganay عبد العزيز الفوزان حفظه الله إن راشد العدواني إيو النملة ورجل آدي قلت تأثرنا الرجل النملة إيو عبد العزيز الفوزان يوسف الشبيلي إن راشد العدواني فؤاد غنين واحد ديت شوقي إن جعفر إدريس صلاح الصاوي فربضان مركات شوقي أضو فربضان فهد الحمود إن فهد العامر إن
war ilaa iyo dhowr iyo labaatan waa wasbad bedeli jiray in Sacuud Allah yarxamuhu dhintay asagu marka raggaasaanu markaa runtii xifid maado kamaanu baranin oo aad u fara badan laakiin waxaan uga faa'iidsanay akhlaaqdooda iyo tarbiyadooda marka halkaas ka bilowday mashruuca tacliim ما شاء الله شيخنا قار علماء كم دوا نوتها بتي لكن علماء آد سامين كلها لبدا الشيخ إن آدي قلت أثري ورتوا نمرونك حوي عبد العزيز الفوزان عبد العزيز الفوزان ونن مفوه ونن علم يعني فعلا متبحر كوحن آدي قلت أثري أولا السوق علماء كانوا وكدونا ونسود وين شري يعني خاصة قاعدين وراعي شري مسؤول ميلها سنة كده بتري شري مخلوفه كده بردوف شري أما سجى بيسيك حين شري إن شن سنة مركان أيام لازم يسجى شن تاس سنة إن حتى وكان ترد يجي ومركان سو زيارتي وهذا فرس بدأ شغلنا ويكدن إن شخصية ديس أسلوب كيسة وهو قف مر ورد لفريستي وحمد كفايدة سا إن السكفر يسوس كشكستان مو إنه قالن شيرين مركون شنتي من وضع فرلون شير أوكي ما رأيك في مسألة كذا وكذا مقصود مسألة إيبية مقصود مقصود أولاً لا رفنسا مقصود كل جوابية مقصود كل كذا كذا مقصود يقول سعيد عدها علي مقصود دي أدنوا وقتي فكوا الله برنا مركو سأله ويدي وأنا قلت لك شيء أنا لو الامتحان مركا أسلوب تيسا يضدك عنك وها نين سلسة أو سهل أو يعني حبوب إن مركو حنور لقيو وحن كدرمي إخلاص أيو اندفاع أيو عاطفة يا حماس أيوكو حقول لقيو ما شيخ دوني إنه لقيو أو مركا اسكر لما يجلاسك أما ماشي المشارير بنكو قاطعية مركا ده جلاسك كبح هدي أي لوك لفتوين حتى صفر إنه صفر يجري إن وحن قرني يعني إن مصر مالي ده مر ونسك حيسني مركا كتاب العمدة الفقه الحن أي الحنبلي أي نوبل وأنا كان يقول الشيخ وحندونا دروس زيادة بكسر جيد جيب كتاب كيو ومركا وحوها قف يعني flexible أو سلس أو سهل أو حتى تتقلد لا بأس بقرنية وكان كريم في الدرجات مركب بالدرجات بحين كان كريم امتحانك حتى ما كان وحنا لأن يرد أنش علينا ما كنت أحب المراجعة حتى سؤال جوابه ما راح أراجع ما بدي بقول نقول مايو مركب قرية جديد وكلامية سنقيبه سؤال لا ارجع أرد فريسة كن نقو يا شيخ أنا خلصت لا ارجع لما تسوي قبورني لا ارجع حاول قلده ارجع مركا إن محبة يو تربية أيام كهذا مركا لذلك أنا تأثرت فيه أكثر من غيري شيخ كلام رنتي أن تأثرت فيه الشيخ خالد النملة وحوها not only دين تيقانو لكن وحوها قارئ جميل القراءة إن السجن وحوها سلس وسهل وحبوب وحبيب وكرشك السنية ما يجرين تكبر كايو وريا أنت الطالب أما فريسو لكن كذلك أصدق تأثير كيس حتى أسلوب كيس مركا إن لبضا صورت في الجامعة ده تأثر وقت قام لقيت الشيخ ابن عثيمين حفظه الله رحمه الله رنتي إن أصدقنا وحيا بضا من كفايدستي إن unfortunately سنت إن أوشين وقت بدنا لا تشوقي لها لكن أصدقنا وحن كفايدستي ومددا لا تشوقي إن طالب هتلاقي كن طالب عفري أنت إيش سو قبلسه مدول بو والله صعدة كذلك يرى يقول حني ليش طالع على الجدار ما هذا كذلك إيه قصة إن يرى الركوع عسكري الله حني قوم أنت قوم أنت باين عليك النعسان يركع إنه كوحكوير مشغول حني أنا إيش قلت محاني لين كسر علي مركا أرضيده أردن كان يهتم بهم يعني أسلوبه مركا واحد كده رمي جرمي أهين علماء دروس أنت إسكهاد لان قف كيف فائدة أنا كفائدة وقف كي عن دوني الناس كيشترتها وأتفرد هذا كيشترتها لكن واحد علماء دوني إنه أورنج لي حد كاس عدد فرد وين كفائدة استه أنا هدي أنا دي كفائدة سنين محن واحد ليا محن قالني والله شيخ عبد العزيز الفوزان من إن وحركة حبلا لو لقيت شو مكان لكن دي واحد من وراء الستار وكذا ما كاسو هذا كل يحب مغرب كسولي مؤكتين أنتوا حناقي مؤكتين أنت الأسوة كده درس كان سيدك صوت دياري
ma ogtahay inta qasuuday daris muxaadaro dheer noo galay kitaabka iyo kitaabka iyo kitaabka iyo kitaabka waxay idinka qaadan lahayd 4-5 bilood baan anigu kusoo lakhasay buuri 3 saacadood marka ka faa'iideysta marka raggaasi ma yahan rag يعني القي وامشي واحد هل هو فعلا استفاد ام لم يستفد marka kuwaas ay ku leeyahay ta'thirkooda ما شاء الله يا شيخنا الجامعة دبا علماء la kulantay خارج الجامعة banaankeedina sheekh ibn Taymiyyah kamid kuwa kale ma jiraan waxaa jiray culamo in horta shanqeydii markaan laqataat iyo aan ugu tagnay guryahooda la fadhiisano kutubkeeda la akhrisanay laakiin wax waaweyn oo kala meeyno jaamacadda because anagu markaan joognay waxaanu joognay environment kale marka waxay focus in wax iska dhameeyno degdeg iska dhameeyno marka culamo kale in man fara badan laakiin maxamed al-shanqiti in حتى عبد المحسن العباد حفظهم الله in عبد الله المطلق الغديان وكل نون فرسن الدروس بانو كقادني اللواحق عبد الله اللواحق كل علماء الله فرسن جري انه واحد دغيسن جiro de markan فرسن انه كاخرسن جري كتبتا صالح المناجد ان بدل ما انه كاخرسن كفرسن كتبتيسي ومري جري marka alhamdulillah in علماء waxaan laakiin de ma yahayn tadanu 5 sano ama 6 sano ama 4 sano aan la joognay ma yahayn ما شاء الله شيخنا waxa kadib marka wax soo barteen waxa u jeesateen ama u leexateen dhinaca dacwada marka meeshay dacwada meeshay ka bilowday dacwada iyo maraaxisha soo martay sidan markii hore bay dacwada kamaanu bilaabin in بعد الجامعة dacwada waxaan bilownay qabla الجامعة marka dacwati shabab aan ku bilaabay dhalinyarada in aan ka dhaadhicino diinta in ayaguna aan fahmayno diin uga jeedno oo campska iyo in yani rixlaadka tarfiihiga oo kale mubaarayaadka oo kale tadriibaadka oo kale masaajidka oo habeen kana i'tikaaf loogu sameeyo cashooyin hooyinku sameeyaan wax loo dalbado waxyaabahaas aanu ka bilowno aanu ka wadnay in xitaa markaan jaamacadda ku jiray de waxaan nahay ducaad baan nahay waxbaan dhiganay waxbaan akhriyanay waxbaan u sheegaynay dadka naga hooseeya in wixii aan soo dhiganay aan garanaya maadada inta oran jiray intaan laba goox dhigi lahaa maadada soo diyaarin lahaa anigana wax laysoo sheegi lahaa tan laysoo sheegay aan ku fahmo oo markaas su'aalashi culimada ka weydiiyo dariskii laysoo dhigay aan ku celiyo si aan ugu fahmo oo maskaxdeena aan u xafido in runtii waxaan macallimiin ardadooda chapter ka horeysa wax badan ka baan horeeyay waayo one chapter baan ka horeeyay oo qoran in taasina wax nagu khudbadaha iyo duruusta iyo muxaadarooyinka iyo salawaadka iyo anagu ku dhex jiro ma sugaynin intaanu takharuj aanu sameeyno حتى علماء يدي عن كانوا ما يقولون شيء حتى نو أرض صديق عبد العزيز الفوزان يا محاد يكتبوا لك الويكند محاد صديق يمسك قفط حشيكته محاد فهم سيسه مركان يقول لي بدنا نحسب تبشري مركان هو أنا الدياري شلو وحلوان شلو وحنقول نسأل الدعاء ما كان عدد مثلا كبلوا ذن زيرو لكن إمك أنت كان عندك كل شيء قرارات كان عندك صحينا سوى شيء مركان هكذا صار كبلنا الدعوة ما شاء الله شيخنا مساجد ياشا دروس ما كديك شرتين أو كتب مشارح شرتين كتب أعضو فربض ما نودقني إن وحنا دقني أرض التوحيد كتب محايدة كتاب كان الأصول الثلاثة إن كتاب التوحيد وانا دقني الحائية لابن أبي داود وانا دقني إن كتب فربضنا عقيدة كذلك فقه العبادات فقه إن محايدة وحي كدن بي حتى أبواب الفقه ولوان ودقني انتو ضبطن وحن ودقني حتى وحتى في سيرة النبي الصحيحة ملا إن صلى الله عليه وسلم وحا ميركو الضوبا كونتني سيديد محاضرة ووضع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أفكارس إنجلس وكل بيشتري وحوال بقى إن كتب الروحانيات ملا بضمان إنه سيرة مركا كتبته ولا قد بيشتري المساجد ده إن هذه نقطة فقه هذه نقطة عقيدة هذه نقطة إن إسلاميات كوا محنا للرضا ونبيشتر نعم ما شاء الله شيخنا مؤتمراتك أما ندواتك كيف قادتين والله هذاك الشيخ هذا ما ترين كره إن لما ترين كره ويفر بديهين وايو ده ويقولوا ميل بان تكدقنا إن لكن واحد شراء
mu'tamaraat caalamiga oo waaweyn ay ka mid yihiin mathalan Peace TV mu'tamaradooda ay ka mid yihiin waxaa la dhahdo Dubai International Peace Conference waxaa la yidhaahdo oo ayagu socdo oo yimaadaan طبعا Sudais iyo Mashaari al-Afas iyo labadaba way culamadaas yimaada oo yeerli ahaan jiray. waxaanu ka qayb qaadanay mu'tamaraat kaloo international kuwa ka dhacaya mathalan Africa oo kale Nigeria laba ka jira oo sanawiyan u tagnaa Nigeria laba ka jira mid Kaduna Kanu iyo mid Abuja Nairobi mid baa ka jira rasmiya Malaysia mid baa ka jira kuwaas aad bay fara badan sheekh lama tirin karo kuwa lama tirin karo. masha Allah sheekhana waxyaasha ugu gooyaa badnaa ala kulantay ama aragtay dacwada aniga waan waxaa fara badan wada kulmaysa aniga dacwada in badan baan kusoo jiray anaa caruur lahayn baan kusoo jiray caruurtana waa caruur waaweyn imika wax walba waan soo aragnay sheekh waan soo aragnay laakiin mara waxyaabaha igu cajiibka ahaa waxay ahayd dhowr arrimood anagoo mar kasoo degayna waa funny tan waskeera waxyaaba laakiin waxyaaba xarija jira waxyaaba muxayira jiro gees allaali gees dhaqaajis aanad garanayn. waxay ahayd mar baanu kasoo degnay waxaan joogay magaalada maxaa la Birmingham baa ayaan joogay marka anigii inama kale kasoo degnay dars aanu bixinaynay hablo yaryaroo markaa teenager ayaa naga soo horbaxay oo dee markaa waa 17 jir 18 jir aankaasoo marka anagu intaan albaabka daba kasoo baxnaanu bilan kasoo wareegnay ayaguna way zixmad baan marka ayaguna xagga ma kasoo baxeen way la kulmeen marka inayno baatiliintay saasumay way sheekaysanayeen kuna madax u qaaday waan soo dhaafin marka sumay tii waa sheekh Saeed labbaysis shaaric marka waxaan taaganay Birmingham baan taaganay masjid Raxmaan u dhowna anigu waan angagay ayadana way angagtay kuwii la fadhiyay la socdana habay ma tarina waa bila faa'iido hayno ayaguna way angageen yartii markay 10 second igu dhajisnay ayay aragtay waxay samaysay sidii wax waalon bay flick inta dhinac u booday samicna abadan kharajat warabta taasi waxay mowqif xaraja mowqifka muxayirkana wuxuu ahaa runtii aan xitaa u geeyay wuxuu ahaa mowqifkii ninkii gabadh iska soo dhigay wax walba soo bedelay gabadh u eka oo markaa dooniyay okay nin gaalan ahaa gaal baan ahay islaamka kuma jiro diinta maxay ka qabta qof anigoo kale ah batan u geeyay markaa Cabdulaziz Ali Sheikh aan la fadhiisay xitaa asagu iga jawaabi kari waaye marka Cabdulaziz Al-Fawzan bay runtii iga jawaabay mas'alada oo waxay masaa'ilka muhayyira kuwa aad u muhayyirka ah maxaad ku samaysaa ma gabadh buu la mucaamisha way gabadh bay u eg tahay ma nin baa la mucaamisha waayo wixiisu waa DNA-giisu waa nin ma khunta la mucaamishayo xagaa joojisa ma laba saf dhexdood joojisa ma dumarkaad ku darta ma ragaad ku darta hadaa ragaad ku dartid qof gabadh kale tukanaysa way koofid xiran macquul ma haddii dumar ku dartidna dee ninku ma dari karsid waa ilaa waa nina kuwaas waxay mowqif muhayyiro oo marka u baahda runtii fatwa. ما شاء الله. شيخنا سؤال ugu dambayso ducaada dadka ducaada oo intaas oo dacwada ku soo jiray ama dadka dacwada bilaaway oo Yurub ku nool ayadoo mashaakil badan jirto taxadiyaad waliba khaasatan dhinaca dhalinyarada maxaa u nastaxin lahayd hawsha dadka dacwada ku jira kuwaas mala nasiixad uma baahna way ayagu markaa way u bareereen inay dacwadan wadaan iyagoo og makhaatirka oo madarada lagu cadibo la joojiyo oo la faro oo la baaro oo su'aal la weydiiyo way u bareereen inay ilaahay diintiisa suurta u ritaan way u bareereen kana waxaan ku leenahay fasbiru inna allaha ma'a saabiriin man ku leenahay dhalinyarada soo kobcaysana waxaan ku leenahay soo koraysa xaqiiqatan gaaba noo dhaxeeya annaka iyo ayaga
markaan eegay wadaadadan dacwadeeda meelaha looga yeedho anaaba la yidhahdaa asagaa noogu yar. marka waxaa jira faraaq kabiir jiddan 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 baa jira. waxaan uga baahan dhalinyarada markaa inay dhalinyaradu runtii isxilqaamaan oo ay soo kacaan oo ay diinta nagala wareegaan, waayo ma sii wadi karo. dhalinyarada anigu waxaan sheegi jiray marka dhalinyaro ahayn daayigaba iminka rag waaweyn oo xaas leh. marka waxaan u baahanay dadka dhalinyarada ducaadka inay doorkooda ciyaaraan, inay dacwadan la soo galaan, waa ay biquwa weliba ay ogsoonaadaana wadankan aan ku noolahay iyo sidan u noolahay iminka taxadiyaad fara badan baa jira. waxaa la doonaya dacwadda islaamka in la xadido. sida qura loo xadidi karana waxa weeye dadkan dacwadda wada waa in la joojiyo la dabra. marka waxaan u baahanahay iminka wadan walan joognaaba, haddaynu joogno wadankan ama joogno wadanka, inuu wadankaas helo iktifaa daati oo culamo ku filan ayaga iyo ducaad ku filan uu helo. waan u baahan sheekh Mustafa inuu yimaado Norway, waan u baahan inuu sheekh Bashir uga yimaado Canada, wallahi wadankaas in ku filan ayaa loo baahan. sidana waxa la heli karaa haddii dadka wadanka jooga oo wadan walba waxaan u baahanay in caruurteena aynu diro ka community ahaan. imika dadka soo baxaya ee soo socda dad community-gu ay ka talisay ma aha, waa dad waalidkoodii isxilqaamin ama ayagu isxilqaamin hada annaka caruurta wax baranayna annaka dirayna. laakiin ka warramay imika haddii community-gu oran lahayd waxaan u baahannahay dad ducaado diinta inoo daadeeyo inoo sii wada. maxaa xala? waayo hebel uu gaboobaya, hebel ayaa waxa la odhanaya wadanka ma soo geli kartid, hebel sharci ma haysto, hebel ma soo mar. maxaa xala? waxa weeye markaa as a community inuu u fakiro aynu nidhaahno war inuu aynu ku dadaalo. waxaa jira dhalinyaro fara badan oo jecel inay matalan Masar oo kale wax kasoo dhigtaan ama wadamo kale kasoo dhigtaan oo aan helaynin scholarship. haddii marka community-gu ay isxilqaamaan yidhahdaan wani arag inankan muxuu u baahan yahay, inankan fulaan ee 12 jirka ama 20 jirka waa inan mudakara, waa inan caqli leh, waa inan mas-uula. ka waran haddaynu asaga aynu u diro wadanka wax noo soo barto, imsuu ina kalifaya bishii laga yaabo $300 ama $500 community ahaan in mas-uuliyadda inta la saaro oo la yiraahdo la diro oo marka qof la soo saaro community-ga loo soo saaro ducaa. ta kale in soo food saaraysa ay actually aynu ilaa imika weylaadkeedan ku jira wax weeye runtii ma haysano hablo daaciyad. imika inama fara badan baa jaamacada islaamiya ku jira, inama ku jira jaamacada Imam Mohammed bin Saud, meel ba ka yimaadaan inama fara ku jira. laakiin hablihii Soomaalida waliba ee dacwadda fidin lahaa ma jira. waxaa loo baahay marka in hablaha qudhooda loo diro oo la dhigo matalan inantan way isqabaan diinta jeceli wani labadaba aynu dir haddaynu community nahay. markay birto inoo soo noqdaan inantan hablihi bay naga qabanaysaa, inanku inamadii caruurtii bay naga qabanaya. taa waxaynu u baahanay inaynu si community ahaan uga fakiro oo aynu xilqaaminayno community-gaas. matalan odensa community-gaasi waxay sponsor gareeyeen 2 qof ama 4 qof ama 5 qof oo marka la rado 3 sano 4 sano idinkuna soo dhigta sanad walba soo noqda. taas waa daruuri. waxaa loo baahan yahay ardayda dacwadda ku jirta imika adigoo kale iyo dhalinyarada kale inay idinku dacwadda soo gashaan oo wax dhigtaan oo samarka kale haddii iskuulada marka fasax ka qaadataan inay soo gashaan oo dhalinyarada wax u dhigtaan. waayo idinka tadriib bay idin noqonaysaa, tahiyat almajaal bay idin noqonaysaa. annaguna gacmo furman kusoo dhaweyna runtii oo sheekh Abu Talha oo kale, sheekh Hanbali oo kale, sheekh Mustafa oo kale, sheekh Dr. Ali oo kale, meel way joogaanba haddii ardaydaas jiraan way jecelin cid meeshii ayaga usoo fadhiiso oo wax dhiga. marka taana ku dadaala sheekh dhalinyaro baa idin leeyahay. جزاكم الله خير شيخنا. شيخ يا أمهد علينا أنت ككل من حلقة تنهان نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.